amaanana ay soo baxay halkaan imaanay welibana ayagoo raba inay safar aadaan kadibna gabadhaas telefoonkaas ay furanaysa welibana ayadoo rabta inay sawir ku gasho markaas meesha kaamirada ay geysanayso xabadkeedana waxaan qoran help telefoonkan sawir ay ku galaysa kadib ninkeeda soo qabanay welibana isoo qoray maxaad samaynaysaa markaas ay hadan gabadha ka shakinay waxaan ku dhahay xabadkaaga maxaa qoran ii sheeg wuxuu barkaa ninka gabadha xabadkeeda inuu ku qoran yahay help me laakiin si fiican uma arkaayo isaga wuxuu walaalna waa inaad furtaa gluuska kor ee shaatiga laakiin ayadu way ka diidaysaa ayagoo sidaas siidooda hal mar waxa soo jeesanaya lamaanahaani kan markaas wuxuu ku dhahay dadka aan daawanayna kaban halkaan fadhiisana kadibna gacanta ku soo qabanay oo soo jiidaya isagoona ku adkaysanaya dhahayaan welibanahaani waa inaad soo raacda kaliya ninka markaas ninkan wuxuu bilaabaya telefonkiisa inuu furo balse wuxuu arkayaa telefonkiisa inuu sawir ku jiro naagtiisa inay fiirinaysa markaas gabar sawirkeeda meesha u saaran yahay kadibna waxaan qasay wuxuu ku dhahay aniga kuma raacay bas doona kama seersan gabadha meeshaas isku sabirtay asigana wuxuu ku dhahay gabadhan ma aqaan qofka ay tahay markaas ayadana waxay ku dhahay aniga waxba waxa saga dhaadhan gabadhan waa taqaan qofka ay tahay balse hadda kadib ma buu ku raacay bas markii xabiilaysa tikidka meesha neejajeexdo isagana wuxuu ku ilaalinay aniga gabadhan ma aqaan balse ayada waxay ku dhahay waa taqaana waa qof si fiican u taqaan markaas wuxuu ku dhahay waxaan u maleynaa gabadhan oo baahan tahay caawinad kadibna sawirka fiirin markay soo dhawiyaan meesha xaq qoran bihel markaas soo baraaruga waxay bilaabaan gabar inay raadaan si ay u caawiyaan labadooda markiina kordheer ka arkaan kadibna waxay isku dayaan labadooda gabadha inay caawiyaan agteeda imaanayaan labadooda markaan waxay ku fikiraan gabadhaas inay caawiyaan isagana gabadha wuxuu ku dhahay gacantaada waanaad aniga soo dhiibtaa gabadha ayaa isaga gacanteeda u dhiibaysa welibana ayadoo aanan ka qomneen isla markiiba xabadaan kale ay fikrad keenaysa taasi oo ay ur samaysato si ay ninka meesha uga kacsad kadibna gabadha agteeda u fadhiisato calool fake ay soo samaysanaysa kadibna gabadha agteeda soo istaagaysa welibana iyadoo ku dhaysa xamabaana meel aan fadhiisto isagana wuxuu ku dhahay bax meelaas kale ka raadso waxay dhaysaa kaliya meeshan ay u baahanahay isagana wuxuu ku dhahay ma gacalisidiisa ka dhahdo aan ku bara macaani meesha inaad ugu kacda isagana wuxuu ku dhahay okay waayahay soo fadhiisato wuu istaagaya kadibna waxa soo fadhiisanaysa gabadha kale welibana iyadoo iska dhigaysan ku urne oo kale adigana daawada ha ilaabin muuqaalka in like inoo saarto markaasi ay gabadha waxay qashin ka soo baxsanaysaa kajab welibana iyadoo rabta inay ku shubto gabadhaani kale laakiin ninka waxay kala dhicinaysaa inay ayada tahay walaal kadibna kajabka ay qabanaysaa oo gabadha kale ee korkeeda ku daadinaysaa welibana iyadoo iska dhigaysaa inuu cunug caloosha ka soo haraantiyo markaas waxay ku dhaysaa iga raal noqo laakiin dharku aan iska soo bedeshaa isagana wuxuu ku dhahay mayma iska soo bedelayso kale waxay dhaysaa cunuga caloosha ka soo haraantiyo maanis dhin sidan ayaa kugu dhici doonta iga raal noqo isagana wuxuu dhahay adiga muwaalan tahay maxaad sidan u sameynaysaa kadibna ayada waxay ku dhaysaa soo bax dharkayga aan ku soo siinaya iga raal noqo isaga wuu ku diidaa laakiin wuxuu ku dhahay mayma kuma raacayso balse ayada ku adkaysanaysa inay raacdo ayada waxay ku dhaysaa may macaan meel baka ma aad waan israacana kaliya dharkaan iska soo bedelinaya ku dhahaysaa isagana wuxuu ku dhahay okay waayahay laakiin waan dhaqso soo laabtay ugu dhahaya xitaa markuu sidaas ku dhahay ma ahan mid ay ku quman tahay isaga wuxuu ku dhahay bax israaca kadibna soo baxaan labadoodaba isagana markaan madax xanuun ayuu ku dareemay waxay ku sameynaysaa qoftaan kale sababtoo ah muusan rabin qoftaan inay ka fogaado kaliya wuxuu rabay inuu isaga iska haysto xifkan kalena uu leeyahay ninkan wuxuu qoftaan ku sameynay kadibna soo baxay wuxuu su'aalaha dhanka suuliga isaga kaas ay labadooda soo carraan waxaan soo galaan suuli welibana ayagoo isdhahay qofkan maxay tahay sidan kugu sameynaya haddana waxay bilaabaysaa inay shaati ka furfurto ay fiirfiirido kadibna waxay arkaysaa jirkeeda oo adilno dhaawacay waxayna ku sii dhahaysaa ilaa imis ay sidan kugu sameynaya sidoo kale waxa booliska uu sheegi weeyay waxa ku dhaysaa xitaa ima sii qofkaani jaanis yar oo aan qofku wacdo waxay kale ku dhaysaa ninkaani maalul buu dhibaateeya wana irakaataya xitaa gabadha masaakiinta aad iyo oynaysa gabadha kale waxay dareemaysaa murugo adigana daawadaha ilaabin muuqaalkana laakiin noo saarto gabadha jirkeeda sida loo galay gabadhan kale way ka naxaysa oo ka cabsanaysaa ayadaab ka baqaysa ninkan sida u yaalo markaas ay waxay ku dhaysaa ninkan wuxuu u baahan yahay in wax laga qabto sidan laguma sii fiirsan karay ku dhahaysaa markaas ay haddana waxay ku dhaysaa wallahi iga raal noqsay inay kugu dhahayso baan muleyn kadib laabta ay gelinaysa welibana iyadoo sasabaysa gabadhii masaakiinta ah loo dhaysaa adiga kaligaa ma tiid aniga ayaa kula jira iyo ninkeygaba anaga ayaan ku caawinayna sacan waxay laga bilaabaya ku dhahaysaa gabadhin aad iyo oynaysa miskiinta markaas gabadhi waxay ku dhaysaa ay dhegeyso ninkan sidan kugu sameynaya sidan kuma sii fiirsan kara maanta waxaan iska xirnaa oo booliska aan geenaya ku dhahaysaa ninkeyga ayaan u sheegaya ayadana waxay ku dhahaysaa waxa rabtiin ku sameyn diyaaraan ah waa ogolaa kadibna isaga meesha orod ku soo galaya markaas ninkan kale soo istaaga welibana isagoo ku dhahay tani waa suuliga gabdhaha ay gali jireen maanta iyo ragga isagana wuxuu ku dhahay waxba iimaysan gelin waan galaya isagana wuxuu ku dhahay ma gelaysa meeshan kadibna wuxuu ku dhahay booliska inaan kugu miyaad u baahan tahay oo telefonkiisa tartiib oo la soo baxaya markuu telefonkiisa la soo baxo kor u taagay ninkan telefoonka uu badafaya xariifka kadibna wuxuu sameynaa telefoonka uu qabanaya dhulka inuu ku dhufanay gabdhaha telefoonka jabiqiisa ay maqlaan kadibna ay carraa musqusha galaya welibana ayagoo wax waliba ku sameynaa si degdeg ah isla markaasina xariifka meesha orod ayuu kusoo galay welibana isgoor inuu kasoo baxsado qoftiisa markaas xariifka wuxuu bilaabaya inuu ku celceliyo beebi ku aawi beebi waxa ku dhaca beebi xagga ku jirta kadibna suuligan iyo gargaraacay welibana isagoo ku celinaya beebi soo bax banaanka soo bax inuu ku celinaya beebi banaanka soo bixis miya aniga adiga ayaan ku xisay ku dhahay maqlaysid miya ayuu ku dhahay laakiin ayada intaasba kuma socdo kaliya waxay ka baqaysaa codkiisa isagan wuxuu ku celinaya beebi aniga mu waan adiga aan kula hadla irida iga fur ayuu ku celinaya laakiin ayada way baqaysaa codkiisa ka baqaysaa kaas gabadhan fikiraysa kadibna fanaanadii soo bixinaysa hoos ayay soo dhiibaysaa markiina ayada fanaanadii arkaysa kadibna xabiilaysa shaatiga inay soo baxsato kadibna gabadha u soo dhiibto si ay labadooda uu saraadan isaga wuxuu ku celinaa beebi aan ku baray banaan ku soo bax balanka qaada marda inaan ku taawinin oo balan banaan ku soo bax aniga moobile ay ku dhahay balse meeshan howl kale ay ka socdo dad gabdhaha dharkay kala bedeshteen sidoo kale oo kale ay soo dhiibtay kadibna xabiilaas inay irida furto kadibna ay meeshaas orto oo soo baxdo isaga uu arkay shaatigeeda cadaanka ah kaasi ayuu ninka wuxuu bilaabay gabadh inuu soo bursado oo soo circirso ay xabiilaas way kala dhoomanaysaa markaas ayuu sida gan wuxuu dhahay aabay ayada xagee ka baxday balse ayada dhoomanaysa halkan ay ku jirta qoftii horena ma aha qof ayada isdheesa ka soo baxso ay hal mar meesha fataq ka soo dhahay kadibna gabadhay kormaana ayada xabiilaas inay kala dhoomato isaga wuxuu
ku dhahay adiga aniga eegama baxsani kartid waxay doonta baa dhacdo kaas ee lugtaaga istaagaysa markaas wuxuu ku dhahay xasan waxba igama dhibayso kaliya waxaan arkaa inay tahay raaxo isaga markaan wajigiisa cabsi ka dhigaysi eeda ay cabsato balse eedo xaska miyeelayso waxay ku dhaysaa qofka tiraadinayso aniga ma bii ka kaas inuu ku xanaaqay wuxuu dhahay adiga qofteeda aaw kaas ayuu hadana wuxuu ku dhahay aniga miyaad caaraysa qofkan ma taqaanid miyaa wuxuu ku dhahay aniga waxaan ahay qafiifo isla markaasna meesha waxa imaana booliis ceersana kadibna isaga ay qabanayaan qofta kale halkan ay taaganta waxay ku dhaysaa qofkan in badan way dhibaatay nafteeda xitaa wuu dhibaatay halayga qab kale ku dhaysaa adiga oo taalanta waxa taa qof waalan isaga wuxuu ku dhahay adiga aniga waan ku dilay isla markaasna xariifka la wada oo booliiska wada waxay gelayaan saldhig kadibna gabadha waxay bilaaysaa qoftan kale inuu mahad celis waxay ayada u sameysay ayada waxay ku dhaysaa adiga waxa taa gabar geesiyada wax walba sameynayso ku saxanta sidoo kale waxay ku dardaarmaysaa nafteeda inay ilaaliso adigana daawade ha ilaabin muuqaalkan like inoo saarto sidoo kale page-kana follow